الله ayaanu uga mahadcelinaynaa oo noo suuro geliyay inaan maanta ku sugannahay degmada Cali Guduud oo muddo dheer ay ka talinayeen ama ku amar taagleynayeen ummadda ku nooleeday nimanka khawaarijta ahay al-shabaab ilaahay ayaan uga mahadcelinaynaa marka koobaad marka labaadna cid kasta ee gacan ka geysatay oo ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan waa uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo wanaagga aad muujiseen ilaahay idinka abaalmariyo ayaan leeyahay runtii nimanka nabadiidka khawaarijta dalka Soomaaliya dhibaato badan ay ka geysteen hadday tahay cibaadadii iyo hadday tahay ummadii nolosheedii meel waliba hor istaageen waxaad arkayseen dhibaatada ay u geysteen dadka shacabka ay ku dhameynayeen qaraxyada waxaad arkayseen raadadka ka muuqdo oo xumaanta oo deegaankan ay ka geysteen indhihiina aad ku arkayseen gaadiidka meeshan ku guban gaadiid dad masaakiin ay lahaayeen ay dab qabadsiiyeen waxaad arkayseen masaajid loogu talagalay in lagu cibaadaystay u bedeleen dukaaman iyo jibiyeen dukaaman ka dhigeen waa bayt ilaahay oo loogu talagalay in lagu cibaadaysto waxay ku tusaysaa inayna diin wadin ay yihiin koox isu timiday oo gaangisa oo ummadan inay nolosha ku cadaabaan go'aansaday inay yihiin cadayn u tahay haddii masaajidkii dukaan ay u bedeleen ay ku ganacsanayeen ayagu hadday gaadiidkii dadka masaakiin ay lahaayeen ay ku shaqaysaayeen ay dab qabadsiiyeen hadday gabdhihii masaafurka ahay wadada ku socday in dejiyaan ay ku farxumeynayaan saldhig in ku leexiyaan maxay ku tusay meeshaas wax diin la yiraahdo iyo wax dadnimo damiirka dadka dhintay waayay wax sameey karana ma jiraan dhaqanka ay sameynayeen nimankaanu ilaahay ayaa mahadaas iska leh oo maanta suuro geliyay in dhibaatadii ay muddada dheer ku haayeen laga dul qaado waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool nimankaanu noloshii idin kala hereen horumarka haday waxbarasho tahay la hereen haday caafimaad tahay la hereen xoolihiina waxay gaareen inay bil waliba saka aan jirin ay idinka qaadaan inay waxay gaareen dadka qof canshuur ugu qoraan ay yiraahdeen qof heblo intaasoo cunuga u joogtaa waa inay intaasoo xoolo ay keenaan waa inay waxay gaareen dadka masaakiinta ee aan xoolahooda saka ka goyn haday lama neef wataan neef ku fiican ama saddex wataan neef ku fiican inay ka qaataan ay gaareen laba loor badar qoftii wato inay loor ka qaataan ay gaareen inay dadkii bil kasta ay maaragtay ka qaadaan dhaqaalo ay ummadan ku dhibaatayeen ay gaareen waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool ilmihiini ayay maaragtay qarax ku xireen iyagoo quraanka idin baray ama iskoolaadka idin dhigaay ka wadeen ay yiraahdeen hees qarxiyaano dagaal in yageenay ku baabeen asa qaar koor iyagoo ay maaragtay nolol iyo geeri midna aan lagu haynin maanta kadib xor idin waay ilmihiin waxa idin bartaano hadday tahay maadi iyo hadday diini tahay labadaba idin bartaano deegaankiina nabad waay ku soo noqdaan leenahay hadday tahay sakadii beentaay leedin ka qaadi jiray saka sida ilaahay ugu talagalay u bixi doontiin cidii xaq u lahayd ayaadna sii doontiin haddii ilaahay raalli ka noqdo saka leedin ka boobay iyo xoolo la boobay saka been leedin ka qaadana ma jiri doonto waxaan rabaa inaan si gaar ah u hadlo in muddo dheer ku amar taagleynay dadkan masaakiinta ee Cabdullaahi Cali Caray dadku u yaqaaneen laakiin dadka deegaanka ay sheegeen in la yiraahdo Cabdullaahi Laaluush qaati ugu weynay ee qarnigan uu noqday wuxuu gaaray dadkiisa oo maaragtay ahalkiisa inuu 20 qof ama 30 qofood hal la wado ee lagu xiro aadan yabaal kadibna odayaasha uu yeeray ana soo deynaa $500 keena oo yiraahdo gaaray ummadana waxay u bixisay Laaluush qaati qarniga Cabdullaahi Cali Caray xaqiiqadu wuxuu dadkan ku sameeyay adduunkana waa u taala aakhirana waa ugu horeysa waxa la ii sheegay dad masaakiina oo maaragtay ilmo yatiina oo waalidkooda dhinteen inuu tahay xoolo iska soo watay wuxuu iska indha tiray ahalnimadii uu ilaabay wuxuu iska indha tiray aayadii quraanka aheeday inna alladina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi budunihim naaran wa sayasluna sa'ira aakhiran aayadaas kaaga horeyso xooli agoontood cuntay adduunkana laga hirma Cabdullaahiyow dadku deegaankana waxay sheegeen in lagu yiraahdo Laaluush qaati qarniga ninkii Laaluush uu banay dadkan masaakiinta ka qaadaatay dib damban ummadan waxaan rajeynaa inaan wajigooda u imaan doonin ilaahay idinkiisa adduunkana waa laga gooyaha aakhirana waa laga gooynayaa oo khaladaadkii aad gashay oo ummadda dhibaatada u geysaa kaaga horeyso waxaan ugu baaqayaa dadka degmada Cali Guduud inay guriyahooda ku soo noqdaan nabadgelyo ku noolaadaan qof wax loo dhimaayo ma jirto ninkii shabaab waa la iska dhicinayaa ninkii shacabka gurigiisa ha yimaado nabad ha ku shaqeysto beertiisa ha tacbado xoolihiisana ha ilaashado ilmihiisana quraanka u dirsado cid qarax uga xiraysa amba cid dagaal uga direysana ma jirtee si nabadgelyo wax u bartaano sakada beenta la idinka qaadi jiray bil walbana mid qabiilna la idin saari maayo mid qofeedna la idinka qaadi maayo
ilaahay wixii uu jideeyey iyo sidaad u bixi jirteenaad isaga bixaysiin laakiin shabaab idin xoog maa maanta kadib aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ballantaynu waa inta dhiman shabaab waa jabiyey meel walbee lagu galana meydkooda daadsan shala u dambaysa iyo xale garas magan iyo meesha la yidhaahdo dagaalkii ka dhacay ilaa 150 khawaarijtii haa jidka taalle ciidamada ka dagaalamaayo guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan Hirshabeellana runtii waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan ayagana u mahad celinayaa raggii fashiliyey qaraxii saaka dhagarta ay maleegayeen raggii fashiliyana waa mahadsantihiin ayaan leeyahay ballantaynu waa dalka khawaarijta laga saaro ummadda way baraarugtay culimadina diiniyan ayay ummadda wuxuu u sheegaan waxay wadaan inay diin ayna ahayn been yihiin ay ummadda dhibaataynayaan ay sheegayaan waxaa loo diiday dhaqaalihii ay qaadan jireen nimankaas way fashilmeen military ahaanna waa u baaba'een oo waa u jeedin goob kasta looga adkaade inta dhiman ha lagu dhiirado aan dhameystirno ballantaynana waa shabaab oo dalka laga saaro aad iyo aad u mahadsantihiin